haddii uu goolkaagu yahay inaad $1 samayso markaad 1 gaarto happy ma noqonaysid why because waxaa rabtaa inaad 10 gaarto markaad 10 gaarto happy ma noqonaysid laakiin qofku wuxuu happy ka noqdaa ama happy uu ku noqdaa insight-kiisu ku noqdaa wuxuuna qofku inside happy uga noqon karaa in wax number 1 uu haysto uu ka mahadceliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال جماعة وناكسن ملك استوى جوكتان با ولكن فرحان واي لما أنت وحن جعلنا هاي إن نقولنا happy سيد ما قاعد يقول هاي فرحان happy هذا سيد وقفكو happy كنا قنكرا سيد وقفكو كنا قنكرا قف contentment أما كنعسن inside كنعسن أدون كما أنت أنجوجنا waxaa la raadinayaa inuu qof waliba ama kan lacagta haysta ama kan aad isleedahay waa billionaire in qofkii qanaacada ku yartahay oo uu qofku qanaaca ku raadinayo in uu maskaxdiisa dooriyo in uu wax kala fiirsado haddaba sidee buu qofka muslimka ah ama qofka maanta nool uu ku noqon karaa happy wuxuu ku noqon karaa saddex waxyaalood inuu qofku sameeyo ku noqon karaa waa inaad ogsoon tahay waxa aan u samaysanahay qalbi ama wadne iyo maskax baa nolosheena u samaysantaa marka jirkeena laga reebo midka la yiraahdo maskaxda ama mindku waa midka knowledge-ka iyo education-ka iyo logic-ga iyo waxas ka shaqeeya waa wadnaheena ama heart-geena waa midka ka shaqeeya waa love kindness-ka effect waxyaabaha caring-ka waxa ka shaqeeya waa marka in aad noqoto happy inaad noqoto waxa u baahan tahay ama aad u baahan tahay inaad fahanto saddexdan waxyaalood buu qofku happy ku noqon karaa number 1 cid naga badisa ama aqoon nooga badan leh ma lahan Allah subhanahu wa ta'ala mar allaala markaan hor istaagnana waxaan dhahnaa alxamdulilaahi rabbil alamin that is the 17 times qofkeena noogu yar if you don't feel thankful haddaadan dareemin oo aadan thankful ama thank you aadan Allah subhanahu wa ta'ala ama nimcada Allah kuu galay aadan xisaabinin oo aadan ka fakirin weligaa ay allaha ma qanacaysid qofka bilow aadanka ah dhaqaale kuma qanco markii aan saleska ahaa ama marketingka aan samayn jirnaa waxaa la oran jiray successka ama maaragtay in qofku guusha u gaaro destination maaha waa journey waa qofku inuu ogsoon yahay waxaad success ku noqonaysaa journeygaas aad ku socoto baad success ku noqonaysaa in example haddii uu goolkaagu yahay inaad $1 samayso markaad 1 gaarto happy ma noqonaysid why because waxaa rabtaa inaad 10 gaarto markaad 10 gaarto happy ma noqonaysid laakiin qofku wuxuu happy ka noqdaa ama happy uu ku noqdaa insight-kiisu ku noqdaa wuxuuna qofku inside happy uga noqon karaa in wax number 1 uu haysto uu ka mahadceliyo number 1 inuu ilaahay u mahadceliyo subxaanahu wa tacaala number 2 inuu dadka u mahadceliyo oo wanaaga ay u galeen iyo qofku meesha uu joogo dadkii ku siboodgareeyay uu mahadceliyo waxay sameynaysaa qofku gratitude-ku wuxuu sameeyaa meesha aad joogto inaad ka mahadceliso in aad ka fakirto in maskaxdaadu furnaato in hadalka maanta aan kula hadlayo ama dhagaha aad ugu dhagaysanaysa allihii ku siiyo subxaana wa tacaala aad ka mahadceliso haddii aadan mahadcelinin kuwaas oo aan lacag lagu gadan karin ama aan any artificial aadan hadal ku heli karin ama aadan dhagaha ilaahay ku siiyo kale aadan heli karin ama nimcada aan la tirin karin qofka bini'aadanka ma dhiragsana waay number 2 in aad fiiriso ama indhahaagu u furan yihiin dadka kaa liita inaad fiiriso aad dhahdo waxa aan haysto dadka aan haysan haddii kaba la'aan maanta aad ka cabanayso dad baa ma luga lahayn haddaad maanta ka cabanayso cunto la'aan ka cabanayso dad baa already gaajo u aruuray oo u dhimanaya marka inaad fahansan tahay inaad fiiriso dadka labadaas inta badan waa dadka caqliga leh iyo culimada iyo dadka ay ka hadlaan tan saddexaad oon rabo inaan kuugu daro waxa waaye nasiibkaaga aad adduunkan ku leedahay ama nasiibka iyo gooliska aad ku leedahay noloshaan in markaad hoos fiiriso aadan dhihin kuwanba halkaan ay joogaan meeshaan aan ku qancaya oo aad achieving inaad goal sarab garaysato adigoo ka thankful garaynaya ilaahay nimcada ku siiyo in badan oo dadkeena muslimka ahna that's what we missing waxaan barking ka dhiganaa ama aan baawurkeena ama nolosheena ku barking garaysanaa inta yarta aan haysano laakiin nasiibka iyo goolka aan adduunkan ku leenahay inuusan qofku ka caajisan haddaba marka aan kuugu celiyay saddexaas number 1 mahad celi u mahad celi Allah subhanahu wa ta'ala
mahad celi meesha maanta nolosha aad ka joogto dadkii kuu sahlay inaad soo gaarto sida waalidkaaga oo kale sida dadka aqoonta kuu furay oo kale sida dadka how much aan u mahad celin karaa ama u appreciate garayn karaa Allah subhanahu wa ta'ala I can't count. How about my mom? hooyaday oo ahayd successkayga iyo noloshayda qofkii ka dambeeyay oo noloshayda meesha soo I can count so many other people on halkan ku soo koobi karin oo aan dhamaantood u mahad celinayo Allah subhanahu wa ta'ala kadib so qofku waa inuu mahad celiyo si uu u garto meesha uu nolosha ka joogo number 2 dadka nolosha ka hooseeya waxaad tegaysaa isbitaal waxaad tegaysaa meel waxaad la kulmaysaa qof la leeyahay is your last hour aad ka tegayso waay oo aan gadan karin hawadan iyo nimcadan aniga aan haysano markii aad adiga ka fakarto you can imagine tan saddexaad oo aan dhiirigelinayo waxa waaye in aadan ku qancin ee aad haysato ee aad fahanto ilaahay opportunity-ga uu ku siiyey oo more nasiibka iyo chanceska aad adduunkan ku leedahay aad ka doorato walaalayaal annaga dad muslim aan nahay waa inaad fahansan tahay waa qofka lacag kasta oo la siiyo iyo dhaqaale kasta uu helo ma ahan inuu ku gaarayo happiness kuma gaarayo happiness waxaa ku gaaraysaa you sold ilaahayga naftaada abuuray marka aad ku xirto maskaxdaadu waxaad ku xiri kartaa education iyo aqoon iyo system baad ku xiri kartaa your heart waxaad ku xiri kartaa kalgacayl baad ku xiri kartaa laakiin the only thing oo soul-kan ama nafsadaadan qarcinaya waa the systemkii ama Allahiga subhanahu wa ta'ala abuuray inaad ku xirto then aad fahanto the only way qofku happiness ku noqon karo waa inuu fiiriyo dadka jooga meesha ka hooseeya inuu appreciate gareeyo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyey iyo inuu leeyahay goals iyo achievement uu gaaro oo uu ogsoon yahay nad waxa aad gaarayso inaad happy ku noqonayso waxa aad happy ku noqonayso processka waxa happy ku noqonayso waxa waaye in aad step kasta oo aad qaado aad goalkaaga ama aad gaarto oo aadan markaad fiiriso kuwa ka hooseeya kaliya aadan u dareemin inaad happy ku noqonayso inaad ogsoon tahay inuu qalbigaaga ka buuxo kalgacayl iyo muxabbo inay maskaxdaada logic iyo caqligaaga uu shaqeynayo sidii loogu talagalay and that's how aad success u gaarayso ilaahay subhanahu wa ta'ala ramadaanka kuwa laga aqbalay Allah naga dhigo kuwa nolosha happy dareema Allah naga dhigo kuwa goolkooda gaara ama gool leh inay nolosha ka gaaraan Allah naga dhigo aad baan walaalayaal inii salaamaya insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh